wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa si wada jir loogu soo dhaweeyay magaalada. Ugu horeyn halkaasi waxaa hadallo ka soo jeediyay maayirka magaalada Maydh waxaana hadalladiisii ka mid ahaa mudane wasiir ku soo dhawow degmadaadii Maydh muddo wad ka yara raagtay maanta waxa iyana muhiim ah agaasimihii wasaaradda caafimaadka agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka oo aynu aad ugu baahnayn ayaa maanta socdaalkan inagu wehelinaya isaguna aad iyo aad baan isaguna u soo dhaweynaynaa. mudane wasiir waxaa halkan jooga 5 tiim oo ciyaara kubadda cagta. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo kormeer ku maraya gobolada bari ee Soomaaliland ayaa hadalla halka uu ka soo jeeday waxa ka mid ahaa sida tan ahaantii halkan waxa ka jira MCH kaasi wuxuu ku jiraa mashruuca Shine ilaa 8 qof ayaa u shaqaalaysan oo ka shaqeeya ambulancekiina waa inoo yaala. waxaan rajaynayaa inaanu kordhin doono awoodda MCH kan marka la gaadhana haddii alla yidhaaho ugu horeysana cusbitaalku inoo iman doono aad iyo aadna waan uga dadaali doonaa taana niyadda geliya inaanu ku dadaali doonaa haddii alla yidhaaho inta ka horeysa waxaynu xoojinaynaa awoodda MCH kani uu leeyahay inuu qabto howlaha gurmadka degdega ee ugu horeeyaan howlaha hooyada iyo dhallaanku iyadoo aanu soo aragnay meelo run ahaantii xataa aanu gaari karin ambalansku oo aanu joogsanay oo markii la ii tilmaamay la ii sheegay in lagaga soo qaado hooyadu marka ay foolanayso in rarab lagaga soo qaado deedna ambalanska lagu soo gaadhsiiyo. waxaanu soo aragnay run ahaantii dhul aad hard to reach ah ama dhulka aanay gaari karin gaadiidku ah oo haddana dad badani degan yihiin oo u baahan adeeg caafimaad. waxaan ku dadaali doonaa annagoo kaashanayna isuduwaha iyaga iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka in loo tababaro dad meelaha ka shaqeeya oo si dhow ula socda oo aan markaana dawada loo geeyo deedna qofkii mushkiladda weyne haysa uun loo soo gudbiyo xarumaha MCH-ka laakiin dadka halkooda loogu tago. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin MCH-ka oo run ahaantii awooddiisu wanaagsan tahay wixii ka dhimanna waan keenaynaa sida qaboojiyihii tallaalka oo kale. waxaan jecelahay uun sidii mas-uuliyiintii horeba ay sheegtay inaan fursaddan maadaama aan halkan maanta joogo diiwaangelintii ku-celiska ahaydna ay bilaabmayso in dadka degmadan Maydh ay isdiiwaangeliyaan. isdiiwaangelintu wax badan ayay muhiim u tahay keliya maaha in codka lagu bixiyo oo qura waxa ay tilmaamaysaa bulshada halkaa degani tiradeeda iyo awooddeeda. sidaa daraaddeed waxa ay qayb ka noqonaysaa ay qayb ku helaysaa tirada dadkeeda wixii resource ama wax qayb ahaa ee bulshada loo qaybinayo ayaa lagu qaybinayaa tirada dadka oo la odhanayaa halkaasi dad badan baa degan. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane boos mire maxamed ayaa halkaasi hadalla ka soo jeediyay. waa dawlad u dhisan inay dhiirigeliso dhalinyarada. waa dawladdii idinku ogeynaan cidina ina caawin waxaanu wax ku qabsanaa waa miisaaniyadda iyo cashuurta yaraa bixisaan taa halkaa ku bixisan iyo ta boorama lagu bixiyo ta gebile lagu bixiyo unbaa laisku geegeeyaa shilimadaas unbaa wax lagu taraa iyadoo ay kaa tahay garoomaduna yihiin waxyaabaha ugu qaalisan. waa dawladda keliya ee imika hadda roogay dhigtay magaalada Ceergaabo waa soo wada aragtay baan u malay kubadaha imika waanu iska xambaarsannahay meeshaan laba qof ku aragna waxaanu anagoo sanadka ciyaaray hal ciyaaro imika laba kubadoodna waanu bixinay 8 kalena waan ku dhiibiyaa imika israa'iil hal wixii markaa halkaa ka bilaabma waynu wada soconaynaa tababara adigoo ku xidhan isuduwaha gobolka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku celinayaa ujeeddada ugu weyn qaranka maanta waa isdiiwaangelin meel walbana saasaanu ka soo lahayn idinkan waxaan filayaa weliba hadda waa dhallinyaradiina intii naasuna waxaa laga baqaa in badan inay kacdayba intii diiwaangelintii hore ka dambaysay
marka aad iyo aad saariskiina qaata. ونمعان أحمد دجال ورباهين الدولة دا عرقابو.